marka ugu horeysa waxaan leeyahay ummadda reer Somaliland intiina halka joogta iyo intay naga maqanba hambalyo ayaan u dirayaa 18 May la soo noqoshadii xornimadeena sanad guuradii 7 waxaan ilaahay uga baryayaa inay nabad ku waaraan iyo barwaaqiyo bashbash taasaan u rajaynayaa halka waxaan kaga faa'iideysan lahaa shaqaaqada ceelaf weyn ka socota dadka walaalhe islaynaya waxaan leeyahay wax alla waxa isku leeynaa sabab macna daro dagaalka joojiya oo ilaahiina u noqda oo nabad dadkii laga dhiga xigmad alla xigmad Soomaali markay isdilayso isku dishaa ma jiro macna laan bay isku dishaa waxaan idin leeyahay dad sokeeya abaatiin meel wada degan meel aad kala qaxdaana ma jiro anu deegaankan waan garanayaa wada wada degantiin aqal qalbu ku dhagaya marka walaalayaal waxaan leeyahay dagaalka joojiya fariintaas inay daweyn noqoto inay ilaahay ka rajeynaya Somaliland waxaan halkan ka oran lahaa waxa ugu weyn ee Somaliland ay ku hirgalayso ee ay wax ku noqonayso waxa weeye midnimada iyo wadajirka ummadda Somaliland wada leh ee u wada dhalatay weeye dardaarankaygu waxa weeye annaguna horaan ugu soo shaqeynay madaxweynaha cusubna inuu taa ku shaqeynayaan aaminsanahay taa sidaan uga midho dhalin lahayd ayay ku xidhan tahay qadiyadeena iibkeedu taana aan ka wada shaqeyno oo cidii kolba xilka haysa ha lagala shaqeeyo ilaahayna waxaan baryayaa in himaladeena inagoo isku mid ah oo isku duuban oo aan iskala gurin oo uliya diirkeeda insha Allah inaan gaadho wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh